السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم Soomaalida meel walbo aad joogtaan. Magacaygu waa Cabdiqani Sheekh Muuse Jaamac Koodaad oo ah ganacsade ku nool wadanka Turkiga kaasoo ka ganacsada ganacsiga qaybtiisa online trading ka la yiraahdo ama la yiraahdo internet trading. Haddaba ganacsigaygan muxuu yahay? Ma la mid baa ganacsi loo yaqaano kuwa caadiga Soomaalida ama ma alaabba waxaan iibiyaa maxay tahay? No, طبعا inta midna maaha. Most of you waxaa taqaanaa suuqa la yiraahdo forex, qaarkiina maba oga mana aaminsana wax la yiraahdo internet in lacag laga samayn karo marka laga reebo suuqa loo yaqaano inaad YouTube samaysato channel ama aad samaysato maxaan ku raadayay Facebook page. Intaa wixii dhaafsan ay tahay wax la isku dhaco ama wax xaqiiqa oo aanay jirin ba ay tahay. Haddaba waxaan halkan idin sheegayaa inaan idinla wadaago macnaha fikirkayga ku saabsan ganacsiyada noocan oo kale ah maxay yihiin xageesa ka yimaadeen aan idinla wadaago ciddii aaminsan ee forex taqaanana aan qayb cusub oo ku saabsan ganacsiga aan idinla wadaago insha Allah. So wuxuu noqon doonaa halkan waxaan idinla wadaagayaa waa introduction. YouTube channelkayga subscribe de sidoo kalena si aad ula socoto maxaan ku raaddaa cashirada ku jira calaamada shaliska. Waxaan halkan idin sheegayaa ama aad ogtihiin videogan waa videogii ugu horeeyay ee aan YouTube kaliya maadaama ay akhyaar badan ama walaalo badan oo ku jira teamkayga Koodaad Traders oo igala socda Facebooka iyo Telegramkaba ay yiraahdeen YouTube channel noo samee. Walaalkayga ku cusub ama walaashayda ku cusub maxaan raaddaa videogan uu ku cusub yahayna please waxaad la ogaataa ama bilo ogaataa inuu yahay qorshe ganacsi oo ku saabsan online trading sida oo kalena aad kaga faa'iideysan karto sidii aad u maarin lahayd waqti aad maalin walba ku lumiso internetka dhexdiisa ama Facebooka oo ha ugu yaraato hadday tahay maalintii inaad 6 saacadood aad ku lumiso noloshaada dhan. So hadda walaalo waxaad ogtihiin asxaabta dhammaan in uu yahay waqtigeenu waqti qaaliya laakiin mostly haddaynu Soomaali nahay aynu ku khasaarino waxyaabaha loo yaqaano asxaab Facebook internet ama social media qaybihiisa kale Snapchat waxay doonaan ba ahaadaan iyo waxyaabo news ah oo la socoto. So haddaba seebaad uga faa'iideysan kartaa waqtigan aad maalin walba qasaarayso isagoo 24 saacadood 2 saacadood oo kamid ah inaad u hurto ganacsigan ama waxaan iga dambeeya si aan idin fahansiiyo aniga ayaa idin la wadaagi doona intaas kaaga baahan doona. haddaba si aad intaa u fuliso 5 qodob oo soo wado ayaad aad u ilaalin doontaa. 5 qodob waxay noqon doonaan 5 qodob oo aniga iyo adiga isku keen wadi doona si aynu kala faa'iideysano. waa run way jirtaa waxa la yiraahdo online trading waa ganacsi xaqiiq ah maalinta kaliya suuq la yiraahdo forex oo kaliya ayaa waxa dhaxmarta lacag la yiraahdo 4.5 trillion dollar waa marka average minimum la yiraahdo marka la yiraahdo 4.5 trillion dollar ama 4.5 trillion dollar ayaa maalinta kaliya lagu kala faa'iidaa. halkii ka kala yimaadaan waxaas xageena maraan waxay maraan ay ka kala yimaadaan dawladaha nolosha caadiga ee dabiiciga alaabaha la kala iibsaday waxyaabaha la isdhaafsado waxaas oo dhan bay ka yimaadaan. sidee uga yimaadaan sideed saad uga ganacsanaysaa adigu waxa aad tahay retail trader wax la yiraahdo. Thanks to internetna waxaad awood u leedahay inaad ka qayb qaadato maadaama internetkii faaskii adduunka la soo gaarsiiyay waxa loo ogolaaday in retail trader qofku inuu iskii u ganacsan karo. haddii awalkii hore lagu oran jiray shirkad heblaaya investment u baahan dadka shanaysi ka faa'iideyso maanta adiga naftaada u gali kara saacad 2 saacadood maalin maalmo intaba adiga gali kara trade naftaada adiga oo iska fadhiya gurigaaga goobta aad ka shaqaysanayso ama meel firaaqaad ku haysatoba. haddaba sidee baynu uga faa'iideysanaynaa waxyaabaha ama arrimahan aan idin soo sheegay? waxaad uga faa'iideysanaysaa muxuu yahay sida looga faa'iideysanayo haddii forex aan for example idin yiraahdo lacag baad lacag kale ku iibsanaysaa ama for example dawladda China ayaa maanta alaab inay iibiso rabta lacagteedii bay dhulka dhigaysaa si alaabteedii adduunku u iibsado. so maxay samaynaysaa lacagteedii maadaama dhulka timiday alaabtii adigii doonanayay lacagtii baa dhulka ku taala lacagtii China iibsanaysaa maanta markaad iibsato lacagtii China waxa aad iibinaysaa lacagta China markuu China alaabtii iibiyo lacagtiisa halkiisii ugu soo ceshanaya waa dawlad lacagtiisii u soo celinaya because of alaabin laga iibsaday ayuu rabay
marka laga iibsado alaabtii lacagtiisii soo celinaya adiga interestka kugu jira lacagtaasaad ay si iibsanaysaa maanta China waxaad iibinaysaa marka uu lacagtiisii soo celiyo faa'iida xagga kaaga dhalanaysa waxaa kugu jira income waa marka la dhahdo suuqa forex hab kaloo u shaqeeyo idin la wadaagi doonaa jira anigu waan ku shaqeeyo laakiin basican ku fahansiinaya introductionka okay waxaa jira sidoo kale waxaa loo yaqaano suuqa la yidhaahdo isna maxaan ku rahdaa binary and digital options oo ah kaan anigu ku shaqeeyo uu ka duwan yahay kaas waxaa jira waxa la dhahdaa stock market muxuu yahay haddaba walaalkay ama walaasha waxa weeyaan stock market waa sirta macnaha waxaan idiin doonaya inaad faa'iidaysataan stock market waa suuqa aad stockii lacag gashanayso facebooka waad isticmaali taqaanaa ma og tahay inaad shirkadda facebookii share gashan karto yes you can be a shareholder adiga oo iska fadhiya gurigaaga lacagtaad gashanaysaa imisay noqonaysaa $1 oo Mareykanka yes that's it $1 Mareykanka ah ayaad gashanaysaa si aad uga qayb qaadato suuqa la yiraahdo stock marketka shirkaddii Facebook baad ka tahay shareholder waxaad ka gashay $1 cidi kuma oga laakiin waxa ku og suuqani adiga muxuu ka ogyahay halkaagaasi isaga waxba uma tarayso laakiin adigay dan ku tahay halka $1 waxa laga yaabaa halkii minute boqolkiiba 80 ku saaranto 1.8 1 minute gudihii uu ku qaabilsan yahay yaa shaqeeya $1 oo kale isagoo iska fadhiya gurigiisa halkaaga $1 hadduu $1 ku dhalayo maanad faa'iido ku jirin dabcan ha faa'iidaad ku jirtaa ka waran haddii aan $10 galayo exactly aniga igu xidhaan doontaa ka waran haddii aan galayo ama hal aan ku wado dee maalintii lacag badan baad samayn kartaa anigu maalintii waxaan ku xisaabtamaa lacag $300 gaadhaysa ka badan halka maalin exactly saacado kooban baan ku xisaabtamaa haddii aan ugu talagalno waan ka badsadaa laakiin schedule ahaan baan u dhigtaa xagee ka timiday xageesan ku wadaa xageense u wadaa waxay ka timiday waqti badan baan soo geliyey maan aaminsan in lacag laga sameeyo internet laakiin waan aaminay waan ku khasbanaaday inaan aamino oo ku khasbanaaday inaan rumaysto because of logic baan aaminsanahay because of anigu IT engineer baan kusoo baxay midna aan ku sheego suuqani shahaado kaagama baahan doono waxa loo yaqaano aqoon kale oo dheeri ah ama khibrad hore aad soo lahayd kaagama baahan doono in weji lagugu geeyo siyaasad sida ka jirta Soomaalideena maanta wuxuu kaaga baahan yahay passport bankaadhood hadhow isticmaali doonto markaad barato passportkaaga register gareyn doonto iyo naftaada oo maalin kasta joogtayso oo suuqa ku adkayso okay sidee baan u noqonaynaa ganacsato waxaan ganacsato ku noqonaynaa adigoo aniga igu xidhnaada insha Allah walow ay jiraan macallimiin badan oo Soomaaliya inkastoo ay forex ku tareer gareeyaan anigu waan ka duwanay forex waxaan ku tareer gareeyaa hab la yiraahdo binary and digital options maxay yihiin habka la yiraahdo binary and digital options waxay yihiin aan waxaan ka tareer gareeyaa shirkadaha waxaan ku tareer gareeyaa waxa loo yaqaano ama la yiraahdo stock marketka maxay yihiin waxa ay yihiin stock marketsku waxaan hadda idin la wadaagayihiin waxaad arkaysaan waa shirkadii waxaan jawaa lacagihii laakiin ka soo soco lacagaha shirkadii Microsoft ayaan trader ka noqonaya hadda suuqa Microsoft uu xidhan yahay laakiin anigu trader baan ka ahay suuqa la yiraahdo Microsoft shirkadda arkaysaan casaanka Tesla baa baabuurta electronic ay sameeyaa telefoonka isticmaalaysa hadduu Apple yahay ama iPhone yahay waa kan isaga iyo stocka $1 baad gali kartaa $5 baad gali kartaa investmentada sideed u galayso aniga ayaa ku fahansiin doona okay shareka Facebook baa isticmaalaysa hadda waxa laga yaabaa inaad daqiiqad ka hor ka soo baxay intaad videogan daawan haddaba anigu investment baan gashadaa si aan waqtiga ka faa'iideeyo Google sidoo kale waad ka trade garin kartaa hadda suuqyada wada xidhin Snapchat Amazon Yandex Coca-Cola McDonald's waxaan arkayso oo dhani waa investment waxyaabaha aan ka trade garay haddaba Cabdiqani Xaan xagee baan ka soo bilaabay noloshan trading xageese ay ku dambeysay xageese aan ku wada ka soo bilaabay ama aan ku bilaabay wax la yiraahdo believing marka ugu horeysa 5 qodob oo waxa jira i caawiya aniga si aan maaragtay ganacsigan uga qayb noqdo 5 qodob waa 5 qodob ee adigana ku caawin doona anigana ya caawin doona si aynu inagu wax wada sameysano ama si aynu wada ganacsan insha Allah 5 qodob sidee bay ku caawinayaan
sideyse wax kuugu tarayaan. shanta qodob waxay wax kuugu tarayaan. naftaada ayaad wax ka bedelaysaa, ganacsadaad noqonaysaa xor ah, waxaad noqonaysaa qof naftiisa ku dhisan. cabdiqani ahaan waxaan anigu noloshayda kasoo bilaabay magaalada Boorama, halkaasaan wax kusoo bartay, xaggaasan jaamacadda kasoo bartay, xaggaas ayaan waqtigayga ugu badnaa kusoo qaatay. xaggan Turkiga waxaan joogaa ay ku dhow sanad. intaasaan joogana waxaan ku jiray ganacsiga, waxaana i gacan qabtay dad muslim ah laakiin aan Soomaali ahayn. so adigu maanta aniga ayaad i haysataa si aad ganacsiyadan uga barato, laakiin anigu maana haysan jaaniskaan maanta haysato, maanan haysan si qof Soomaaligan maanta kugula hadlayo in igula hadlo igula war xaggan sidaa u taabo kana sidaa u taabo igulaada ma hayn. laakiin anigaa raadiyey. sideen ku raadiyey? runtii waxaan ku raadiyey dadaal badan, in badan waan kusoo dhaawacmay. mustaqbal ahaan marka nafteyda loo eego waxa weeyaan isbedelka ugu badan waxaan aaminay maalintii logically aan arkay logic u arkay. logic waxaan qof practically wuxuu taaban karo arki kara aamina. so waxaan taabtay aan arki karayay markaan arkay I believed anigu wax kale inay horumari karayn. kaliya waxaan aaminay in qorshihii noloshayda aan ku bedelay. so adigu walaalkay ama walaashiisa aad ku bedelaysaa noloshaada. waxaad ku bedelaysaa number 1 goodaa traders haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato. team baan dhisayaa hadda ganacsata ah. ganacsigaani maxaa igu jira fee markay noqoto dadku waxaa lagu qaadaa ama macallimiinta Soomaalida ama macallin walbo adduunka jiro milyaneer ama heer gaadhay ama ganacsigan ka shaqeey wuxuu sessionka kaliya ku bixiyaa $40 marka ugu yar tahay bishii. aniga laakiin waa totally free. wax lacag ah anigu kaama rabo, wax lacag ah adiga kaama rabo, wax investment ah adiga kaama rabo. adigu naftaada invest garee, waqti ku invest garee, waqtigaaga invest garee, noloshaada invest garee, qiimo isku yeel. si aad qiimo u yeelato maxaad u baahan doontaa? waxaad u baahantaa naftaada bedesho. okay, nafteyda sideen u bedelayaa? nafteyda waxaan ku bedelayaa 5 qodob. 5 qodob maxay kala yihiin? qodobka ugu horeeya discipline shayga la yiraahdo aad yeelanaysaa. waa haddaad doonayso inaad goodaa traders ka mid noqoto channelkaygan, haddii aad doonayso inaad ku xidhnaato teamkayga telegramka iyo zoom sessionkayga inaad ka xadirto haddaad rabto lacag baa lagu bixiyaa zoomamka kale iyagoo forex kaliya kuu dhigaya walaalaheen. laakiin anigu waxaan kuu sheegay free of charge in ka badan 54 suuqna aad baranayso sida loo invest gareeyo, sida lacag looga shaqeeyo adigoo bixinaya $1 oo maalin kasta aad ku bixiso shaah ama asxaabtaada. maalinta kaliya halkaa $1 halkaad ku bixiso investment baad gashanaysaa adigoo aad faa'iido ku sugayso. naftaada aad u gelinaysaa, anigana ima gelinaysid, cid kalena uma gelinaysid. investment aad ka faa'iidaysanayso. so maalintii haddaad $5 la soo xaadirto ood faa'iido ku baxdo oo $1 aad ku dhufato halkaa $1 uu 80 senti kuu dhalo, haddana $1.80 aad gasho uu kuu dhalo $3 markaad gasho haddana aad sii wado $5 markaad sii wado aad gasho adu 20 trade oo 5 ka mid ah ay ku waxaan jeedaa 20 trade oo 5 loss ama kaa galaan iskaba soo qaad 15 aad faa'iido. waxa u dhigmi doontaa lacag ku dhow inaad $5 maalinta kaliya ka samayso $50. yes adiga oo beginner ah ayaad intaa ka samayn kartaa. okay, seen uga samaynay? aniga adigu xidhnaanaysaa tallaabo walba oo qaad ku dhaama qaadaysa la-aanteena tallaabo ma qaadaysid si aadan ugu khasaarin suuqan. okay, so $50 ood maanta la hooyatay ood shaqaysatay ood khibradeedii aad imikuun bilowday ka waran sanado imisaad ku samaysan kartaa adiga oo bedelaya. anigu waxaan ku bilaabay $50 inaan $20 $80 ama $70 gaarsiiyo, $100 gaarsiiyo. maanta halkeen $20 gaarsiiya? in ka badan $300 baan gaarsiiyaa. $300 baan anigu xisaab ahaan dhigtaa, inta kale waxaan geliyaa investment haddana. okay, adiguna sidoo kale samee. maxaa kuu diiday? ila mid noqo. anigu waxba adig kaama horeeyo, waxaan kaa horeeyaa keliya inta aan helay chance lagu faa'iideeyo adiga, laakiin iga nasiib badan. Soomaali anigoo ah waa kula hadlayo, af Soomaali kugula hadlayo, waa Cali, waa Cumar iyo waa Cabdi ku kala odhanaya. so walaalkii ama walaashii waxaad ka faa'iidaysataa waqtigana maalin kasta ku cunayso khasaara. anigu waqti badan baan soo cunay, aad u badan baan soo cunay, waxaana ku soo cunay waxyaabo aan qiimo lahayn sideedaba.
anuu dhulkaygii hooyo jooga dee hooyaday iyo markaan arko dee waxa weeyaan waan iska raaxaysanayay waxba wax kale ma bahaynba bax asxaab u tag facebook iyo social media gal soo noqo maxaad qabanaysaa haddana bax haddana asxaab u tag facebook social media xaggan turkiga markaan imanayna ganacsi familigayga ah baan u yimiday laakiin way isbedeshayba noloshaydii maxay isku bedeshay waxaa iga dambeeyay isku bedeshay wixii wuxuu noqday wax ka qiimo badan wixii aan hadafkii aan halkan u yimiday waxaan rajeynaya inaan inaguna sidoo kale noqono kuwa ka badan so si aad uga qeyb qaadato discipline waa qodobka ugu horeeya shanta qodob anigay soo gacan qabteen waa 5 qodob ee aniga laysiiyey si aan uga mid noqdo ganacsigan waa 5 qodob ee aan ku dadaalay ilaalintooda iyaguna ila dadaalay samayntooda okay 5 qodob maxaan ka faa'iiday aniga oo danya maxaase ku faa'iiday gabagabadii halkeen se gaarsiiyey 5 qodob 5 qodob waxaan isla gaadhnay waxa la yiraahdo goal ayaan isla gaadhnay waxa la yiraahdo inaanan kaba qoomameynba noloshayda waxaan soo sameeyey waqti aan soo khasaariyey waxaan ka faa'iiday ama igaba maaragtay noloshaydii iga baaday walwalaan ka walwalay inaan khasaariyo 10 sano ama 20 sano ama 30 sano soo socda haddii uu eebo nafta ii daayo maxaan maanta ku hamiyaa gaari waxaan ku hamiyaa $150,000 oo Mareykanka ah inaan iibsado muddadaan ku iibsanayna muddo 6 bilood gudaheed ay tahay diyaar ma oo hayaas diyaar baan u ahay sidee ku dhacday inaan diyaar u noqdo waxaan ka shaqaystay suuqan ani maxaa igu jiray inaan nii sheego ama ma nidiin xaysiinaya ma waxdana igu jirtay inaan nidiin xaysiiyo no maxaa igu jira team walaalaha iyo Soomaaliya inaan sameeyo because of teamka aan anigu ku jiro waa ajaanib nin walbana wuxuu dhisay team ka mid ah walaalahood ama wadankiisii si uu haddii Turki tahay Turki buu dhisay Germany ninka yimid Germany buu dhistay wuxuu dhisaa nin Iranian qolo team oo laba ka yimid Iranian bay dhisaan because of platform bad hadhow yeelanaysaa platformka muxuu yahay company ka mid ah companiyada suuqyadan ka qayb qaata oo brokerage so it's up to you maadiga raba mise ma rabtid waxaan okay so discipline baa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan oo ku xiga qodobka discipline waa akhlaaqdu maxay tahay akhlaaqdu suuqan iyada ka qayb qaadata qof khamaaraayo oo khamaar inuu yimaado uu talagalo alla markan buy iska dhe haddana sell iska dhe haddana buy iska dhe isku oranayo ma baahna suuqan haddaba iskaga bax iska daa lacag iskaga khasaaran waa lacagtaadu way kaa gubanaysaa qof khamaaraya xitaa xalaal kuma taagna shaqadiisu okay so discipline maanta 4 trade baan galay 4 waan ku faa'iiday alxamdulillah waan iska soconayaa 4 trade mise waxay haayeen baa laga yaabaa mar baan $10 galay baa laga yaabaa mar baan $5 galay mar $2 baan galay intii baan ku faa'iiday faa'iidan taaganahay waan iska baxayaa discipline baa la yiraahdaa waan lose gareeyay waan khasaaray waan yar nasanayaa discipline baa kaa la yiraahdaa maxaan yar nasanayaa shaah baan iska cabiyaa bun baan iska cabiyaa waxbaan iska soo cabiyaa waan yar leersanaya laakiin suuqaygii waan kusoo noqonayaa discipline baa la yiraahdaa suuqa intuu isbedelay okay waxa qodobka labaad uu yahay consistency joogtayn shayga la yiraahdo waxaan inaad joogtayso 2 saacadood oo maalin kasta noloshaada intaad u go'aamiso saacada markay tahay 5 galabnimo waxaan qabtaa suuqan galaa haye waan faa'iidaystaa okay joogtayn consistency qoro 5 qodob meel ku qorto please way idin anfacaysaa naftiina marka hore inaad bedeshaan believe me waad gaadhaysaan wax walba markaad rabtaan insha Allah noloshiina consistency shayga joogtaynta la yiraahdo hadda rabto joogtay waxaan joogtay adigii ka go'aysa anu waan ka seexan kari waay markaan sii seexanay mobilkayga eega waxaan arkaa trailer kamid ah trailerska YouTube-ka igu recommend gareeyo leeyahay ninkaasi waa trailer kamid ah trailerada suuqa una guuleystay markaas siraaniyo isagii baa shaqaystay aadi maxaa ku haray qayrka waa shaqaystay maxaa ku haray waan kacay suuqii ku noqdaa that is the key wa in waxani ma waxaad markaad riyooto aad aragtaa laba kala dooro mise waa waxan waa hami riyadan ku diiday inaad riyootoba ku diido waa riya aad ku diiday inaad hurdooto xitaa riyadaadu ma mid hurdada ku diidaa mise waa markaad seexataa aad riyooto isweydii su'aasha
okay hadday tahay mid hurdadii kuu diidaysa shaqee jadwal samee maalintii ku shaqee jadwalkaaga ha dhaafin 5 trade baan maanta galayaa 5 ma luuskariyay 3 ka mid aan luuskariyay adoon tababaranaya ayaa luuskariyay waan iska baxayaa 5teedii trade waan joogtay maalin walba waan joogtay maalinta dambe aad isbedelay waad arkaysaa 3 4 5 6 7 8 in ka badan sii okay kaalinta saddexaad ama qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa shayga la samir patience kama maarmaysid adigu kama maarmaysid Soomaali baynu naho Somalization kalmad la yiraahdo laynoo sameeyay maxay tahay samir la'aan aan ka gaarnay dawlad baynu dhisan laanahay so waa the only failing state Soomaalidu jirta adduunka okay the only failing state adduunka ka jirta ayaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa Somalization baa laynoo sameeyo dictionary-ga lagu daray waxba laynoo bixiyayba wadanku hadduu 20 sano ka hor ka badan dagaal ku jiro ama civil war galo Somalization baa wadanka ku dhaca la yiraahdaa oo grammarkii ku jiraysa so waxa laga tii taxadiraa in Somalization ku dhaco wadamada kaas laynoo sameeyay samir halkeen ka tahay kana markaa ma baliinba laakiin naftaada bar inaad samir yeelato waxani ha noqoto wax adiga ka go'an mustaqbalkaaga ku xidhan ka noloshaada ku xidhan hayaaba ilmahaad awow u tahay ilaahay hadduu nafta ku daayo wuxuu ku noolaanay aad iska sii dhigi karto sidaa u fikiraan reer galbeedku laakiinse xitaa adoo muslima xaq baad u leedahay inaad hanti badan dhigato meel soo dadaal ha ka joogsan samirkaaguna ha adkaado samir suuqa maad kaga qayb galaysaa suuqani mar waxaad sugaysaa intuu buy soconayo way socon doonaan buy intuu tagayaad sugi doontaa sell intuu imanayaad sugi doontaa ama lacagta sell si aad sell u tiraahdo lacagtaada ama buy aad u tiraahdo faa'iidaad u sugto labadaba brokerage-ka waxaa qabta laakiin aad u buy iyo sell baad ku aaminaysaa okay waxaa ku xiga qodobka loo yaqaano Allahu musta'an confidence kalsooni la'aanteed waxba ma qabanaysid confidence suuqan confidence baad ku galaysaa labac kuma galaysaa alla suuqaasi waa buy waa sell waxaan ku galaa dollarkii iyo USD eurodii talo buyers waxaa ku geli maysid haddaad gasho dhinac buu kugu dhaqaaqi kalsooni ku gal analyze garee suuqan ma hoos u tagayaa ma kor u tagayaa gal lacagaad iska ilaalin doontaa waxaa laga yaabaa saameyn inuu suuqa maanta ingiriisku news baad akhrin doontaa waxaad oranaysaa maanta dowladda ingiriiska ra-iisul wasaare doonta suuqii maxay ka bedelaysaa wax badan bay ka bedelaysaa dhaqaalihii adduunka maanta ee lacagtii JBP-da ama Great Britain pound lacagta la yidhahdo waaye Great Britain pound baa maanta wuxuu sameeyey suuqii wax ka bedelay muxuu ka bedelay lacagtiisii wixii ku sarifmay oo dhan baan maanta iska xajinay waxaan leeyahay hadduu USD poundkii ku sarifmay xaggayga yarjoog hadduu ku sarifmayey maxaan ku idhahdaa waxaa la yidhaahdo euro xaggayga joog baan leh hadduu Japan yen ku sarifmay xaggayga joog Australian dollar hadduu ku sarifmay xaggayga joog wixii ku sarifmay JBP baan iska ilaalinaya because of wadankii ma taagna stably politically news saameyn badan bay ka yeelataa fundamentally okay waxyaabahaas oo dhan baad ilaalin doontaa si aad u ilaaliso waxaad u baahantay kalsooni markaa kalsooni suuqa waad hubtaa maanta professionalskiina way analyze kareen newskii waad akhriday suuqaasi buy buu ahaanayaa bay ku analyze kareen calaamadaha signal baad eegan doontaa buy baad investmentkaaga u gali doontaa anigaa sida loo analyze karay ku fahansiinaya waxa xiga qodobka la yiraahdo maxaan ku idhaahdaa qodobka la yiraahdo waxa xigi doona believing in yourself naftaada oo aaminto naftaada dad aaminaydo waxa ma qabanaysid suuqana ku wareerin naftaada aamin naftaada markaad aaminto suuqana trader ka ganacsada ayaa tahay nin guul ka gaari kara ayaa tahay nin hamigiisa ka rumayn kara ayaa tahay si aad u aaminto waxaas oo dhan waa inaad believe in yourself aamin anigu waxaan aaminay anoo seexan kari la markaan kaco inaa waxaan meesha wax ka gaari karo because of waxaan go'aamiyey nolosheeda wixii aan sirtii dhaneeda nolosheeda ay sugaysay ama riyadii dhaneeda sugaysay aan lugta la galay inaan ka faa'iidaystaa ina aniga igu xidhantay waana ka faa'iidaystay ilaa imika laakiin hamigayga hadafkayga ma dhammaystirna waxaan doonayaa entrepreneurka adduunka ugu da-da yar inaan ka qayb qaato oo ah limit billionaire gaari kara laakiin waa goorma waa qorshaha 10 sano soo socda ama 5 sano soo socda ama 7 ilaa waqtigiisay leedahay okay si aad waxa dhan u xaqiijiso waxaad u baahan tahay naftaadan inaad aaminto waxaan inaad qaban karto caajisin ku noqnoqo maalin walba waxa laga yaabaa inaad ka niyad jabto tiraado maanta waxaan igu yar waji adag yahay maxaa ku yeelaa sideen se maaragtay u macnaha u horumariya noloshan sideen u horumariya adoon is dhibayn adoon is wareerinayn adoon maaragtay
isdaalinin, ka faa'iidayso 5 qodob, ku dadaal waxyaabahan sida looga ganacsado oo dhan, cashiradoo dhan soo socda inaad ka war hayso, ku celcesho fiidiyoyada. basically cashirkan maanta introduction wuxuu ku saabsan yahay suuqyadan ka ganacsan doono 5 qodob, 5 suuq oo kale noqon doonaan. forex hadduu yahay ciddii taqaana way taqaanaa, ciddii kalena basic baan uga dhigi doonaa. suuqa la yidhaahdo binary and digital isna ka duwan forex baa idin bari doonaa. waxaa idin bari doonaa cryptocurrency. lacagta adduunka aad maanta taqaanay way isbedelaysaa 10 sano ee soo socda. lacagta caadiga ee waraaqaha sidan loo tiriyay waxay ku socotaa inay xaaraan noqoto ama dembi noqoto. nin ciyaartooy taqaanaa waa caan, fanaan ama fanaanad baa taqaanaa waa caan, waa milyaneeriin baad maqashay, hay lacagtooda miyaad aragtay? may, laakiin record baa lagu hayaa. iyagu lacagtooda may qaataan? maya, because of adduunkii psychologically buu isku bedelayaa. mentally waxaa la rabaa cryptocurrency, waxaa la rabaa lacagta electronic digital inay isku bedeshaa la rabaa. so digital si ay isku bedesho lacagtii waxaa la rabaa warqadii hardware in lagala baxo suuqa. so waxaa la isku dayi doonaa ama la rab doonaa inay noqoto lacagaad la baxdaa adigoo milyaneer ah oo bangiga ay ku taala in ka badan 10 milyan. ayaa haddana haddaad tiraa maanta 2 milyan oo kamida boorse bangigu hay soo saaro, waxaa lagu weydiin doonaa dhowr qodob oo ah maxaad ku falaysaa, dowladihii baa ku baari doonaa, maxaa qofkii waxaa lagala dagaalamay in lacag caadiyaba sitatay ay 5 dad ku qaato. waxaa loo dhan waa lagu dhici karaa lacagtiina la baxda, maxaa kugu kalifay, ma qof baa laga afduubtay? waa psychologically. so cryptocurrencies waxaan la idhaahdo ama iga dambeeya ay ku jirto waa lacagtii digitalkii. cryptocurrency bay ku socotaa lacagtan caadiga ee taqaano hadda, waa laga baxaya lacagihii kale la yaqaanay. okay, sidoo kalena waxaa jira waxaa la idhaahdo stocks oo shirkadihii iminka idiin sheegaya. facebook hadday tahay, Nike-dii kabaha sameynaysay ama dharka sameynaysay hadday tahay, Adidas-tan xidhanay hadday tahay, hadday tahay shirkad computerada sameysa, Microsoft hadday tahay, waxaasoo dhan baa stocks la iyagana investment saa loo gashado. waxoo dhan waan wada baranayna insha allah. cashiradeyna soo socdana waan ku faa'iidaysanaynaa. so waxaan rajeynayaa inaad basic la fahantay. ani habkaygu ka duwan yahay habka forex. socodii forex ku tariirgareynaysay waa cashir cusub. cashirkan walaalahayga forex macallimiinta ka ah, ciddii la faa'iidaysanaysa sidooda ha ula faa'iidaysato. aniga markaad ila faa'iidaysanaysana mar walba diyaar baan kuu lahay, laakiin mar walba waxaad ku dadaashaa in aad naftaada dadaal la rabto adigu, inay waxani kaa go-an tahay. believe ma tahay oo naftaada macnaha believer ma tahay in aad is aaminsan inuu ka gaadho heer ganacsiga. waxaasoo dhan isweydii. waqtiganaad maalin walba khasaaranaysa isweydii si aad uga faa'iidaysata. time faa'iidayso, gooso, go-aanso. ani 5 saacadood baa maalintii ii go-an inaan tareer garayo. limitku waa $300 inaan tareer garayo. 5 saacadood waxaan ku tareer garayaa 2 saacadood ka mid ah 300. wixii ka dambeeya fasax baan iska dhigi karaa, anigaa go-aansan karaa. laba isweydii noloshaada. inaad noqoto qof shaqaalo shahaadadiisii ku shaqo tegay, shirkadu shaqo tegay, shirkadii la shaqeeya, qof kale oo boos uu u noqday, macnaha qof kale uu boos u yahay, shirkadda ninka iskala taajir ka dhigto, 40 sano soo socda noloshaada shaqayso. waxa ugu badaneed heshaaya ay noqoto promotion, mid lacag kordhin, bishaarka lagu kordhiyo inay noqoto. saacadaad shaqaynaysaa 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ay noqoto. iyo inaad go-aansato inaad adigu naftaada boos u noqoto. baro sida boos naftaada ugu noqoto. adigoo iska jooga beachka aad computerka lasoo kala baxdo tiraahdo anigo lacag yar baan shaqaynayaa, investment yar iska gasho because of internet uu kaaga baahanaya. investmentkii aad gashay lacagtii baankaaga kugu soo dhacdo, kadib aad maaragteenay lacagta aad fasaxa ku jirta ama beachka aad ku fadhidaba aad halkaa ka shaqayso. it's up to you walaalkii ama walaashay. waa kan example haddaa idinka siiyo. lacagta investmentkan bixiyey waxa weeyaan $10 oo example ama practice ah. 10kayga waa invested, waxaan invest gareeyay total investmentkaygu waa $10. lacagta aan sugay expected profitkayguna waa 7.5 oo ka imiday 75 uu suuqa ku taagan yahay. hadda u toole lacagtaydaasi meesha ay tagayso iyo meesha ay ku dambeynayso waa daqiiqad investment aan sameeyey. lacagta aan galay waa for example euro USD. waxaan analyze garanayaa amaad baran doontaan waa candlekan cas iyo candlekan greenka ah oo buy
iyo sell waxa la yidhaahdo u kala taagan. aniga oo hadda tusaale idinka siinaya ama example yar doonay inaan idinla wadaago. waxaad xaggan ku arkaysaan practice-ka inaan invest gareeyay $10. $10 waxaan faa'iidayaa ama expected profitkaygu yahay 7.5. wuu dhamaaday timekii, maxaan faa'iiday $7.5 ayaan faa'iiday anigoo iska fadhiya gurigeygii $10 invest gareey. sida aad u sameynayso waxaan rabaa inaad marka hore aad ila daristo. kadib markaad daristo insha allah adiga ayaa ka mid noqonaya trader, adiga ayaa naftaada u trade gareynaya, adiga ayaana noqonaya qof maaragtay naftiisa. si aad u noqoto ganacsatada maalin walba tradingka samaysa ama saameynta ku yeelata suuqa, khibradaada iyo timekaaga iyo 5 qodob aan kuu sheegay kasoo bax. cashirada xiga iyo candlesticks iyo waxaanay candlesticks yihiin inaad barato ayaa ku xigi doona videogeena dambe, iyo wax la yidhaahdo indicators oo cashirada dambe ku jiri doona oo loo isticmaali doono binary and digital options. cashirkeenuna wuxuu bilaabmayaa videoga ku xiga. ciddii forex ku trade garaysana waxaan idiin sheegayaa ka faa'iidaysta, kolley buu idin anfacayaa waxan insha allah. waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wacan iyo guul insha allah dhammaantiin. waan idin salaamay. assalaamu calaykum.